Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaal kale oo xiiso badan. Maanta waxaan booqasho ku tagi doonaa dalka Indonesia. Waxaana soo arki doonaa qoyskan la yaab kale ee halkan ku nool. Qoyska ugu la yaabka badan adduunka. Ninkan idin muuqda. Gabi ahaanba waxaa isbedelay wejigiisa iyo qaabkii uu ekaa. Isbedelka wejigu kaligiis kuma eka. Xitaa waxa uu saameeyay qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa. Qiyaastii kaliya 25 qof oo ka mid ah 8 bilyan ee adduunka ku nool ayaa xanuunkani saameeyay ama ku dhacay. 5 ka mid ahna waxay ku nool yihiin dalkan Indonesia. Waxa ayna ka tirsan yihiin qoyskan aan maanta ka hadlayno. Xanuunkani waxa uu saameeyay dhammaanba qoyska marka laga reebo 2 gabdhood oo kaliya. Ninkan magaciisa waxaa loo yaqaanaa Surya. Si walba oo muuqaalkiisa u bedelan yahay waa nin xaasil ah oo reer leh. Sidoo kale waa mid ka mid ah TikTokerada ugu caansan waddanka Indonesia. Waxa uuna maalin walba TikTok ka shaqeeyaa lacag gaaraysa ilaa $500. Ninkani waxa uu ku nool yahay gobolka Sumatra ee dalka Indonesia. Qoyska ninkan ayaa caan ka ah gudaha dalkan iyadoo ugu wacan tahay muuqaalkooda cajiibka ah. Mar wax laga weydiiyay sida ay ku soo galeen barta TikTok kuna dhiirigelisay inay muuqaalo iska duubaan. Waxa uu sheegay in markii hore kaliya ay iska xiiseynayeen inay muuqaalo isaga duubaan TikTok ilaa markii dambe muuqaaladoodu viral noqdeen oo ay adduunka wada gaareen dadkoo dhammina ay barteen reerkan la yaab kale. Magaca xanuunka reerkan ku dhacay waxaa loo yaqaanaa Treacher Colony Syndrome. Xanuunkani xitaa waxaa la ogaan karaa inta uu cunugu caloosha ku jiro. Ninkani waxaa walaal la ah 4 gabdhood. 2 ka mid ah 4taas xanuunka ayaa ku dhacay halka 2 kale ay ka caafimaad qabaan. Xanuunkani ayaa la rumaysan yahay inuu uga soo gudbay dhanka aabahood oo isaga laftiisu qaba xanuunka. Kani waa mid ka mid ah muuqaalada TikTokeradani duubayaan kadib markii gurigooda uu booqasho ku yimid YouTuber caan ah. Muddo badan reerkani waxaa lagu takoorayay qaab samaysanka jirkooda haba ugu sii darnaato marka ay tagaan goobaha waxbarashada. Laakiin si walba oo nolosha u adkeyd waxay noqdeen kuwo caan ah oo loo soo daawasho tago halka markii hore laga fogaan jiray. Wejigooda bedelana waa mid u horseeday caannimo. Xilligan la joogo qoyskani waa mid caan ka ah gudaha dalka Indonesia sababtoo ah mar walba waxa ay live ka soo galaan aaladda TikTok iyagoo soo bandhigaya wejiyashooda. Sidoo kale qoyskan waxaa laga daawadaa wadamo fara badan sida Mareykanka, Brazil, Canada, Mexico iyo Ingiriiska. Takoorkii lagu sameynayay waxa uu ku dhiirigeliyay inay noqdaan kuwo caan ah oo dunida laga barto. Ninkan xaaskiisa oo iyadu ka caafimaad qabta xanuunka waxa ay mar walba garab taagan tahay saygeeda iyadoo ku qanacsan qaabka wejigiisu u egyahay. Waxa ayna isku dhaleen carruur. Lacag gaaraysa ilaa $100,000 ayay si bille ah uga sameeyaan aaladda TikTok iyagoo challenge sameynaya ama live soo fariisanaya. Marka live-ka la geliyo ninka oo kaliya kuma eka ee dhammaantood ayaa soo fariista. Kanina waa mid ka mid ah muuqaaladooda TikTok. Assalamualaikum, selamat bergabung. Waxa ay madadaalinayaan dadka ku xiran. Sidoo kale waxay ka helayaan gifts. Ilaa iyo maantadan xanuunkani looma helin wax daawo ah. Xanuunkan kaliya waxa uu saameeyaa wejiga qofka, laakiin qaybihiisa kale ee jirka caadi ay u ahaanayaan oo dhibaato kuma keenayo. Xanuun gooni ah oo ay dareemayaan ma jiro marka laga reebo in dhexgalka dadku ku adag yahay maadaama wejigooda aan dadku la qabsan. Mid ka mid ah gabdhaha walaalka la ah ninkan oo iyadu xanuunka ka caafimaad qabta ayaa sheegaysa inaysan weligeed dhibsan walaalaheeda kale ee wejigooda noocan yahay.